kulanti wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeennii saddexaad waa barnaamijkii habeennimo axada isniin ay soo galayso taariikhduna waa 19 abriil barnaamijka waxaan idinkugu hayaa qodobo aad u xiiso badan oo soo kordhay intaynu kala maqnayn haddaba gabi ahaan barnaamijka wuxuu ku saabsanaan doonaa xaaladda bariga dhexe iyo wixii ka soo kordhay waxaynu ku bilaabaynaa arrin la yaab leh oo laga soo warinayo inay dhacday gelinkii dambe ee maanta haddaba galabnimadii ayaa waxaa la sheegay arrin inay ka dhacday meel ku dhow marinbiyoodka Hormuz markab ay Iiraan leedahay oo ah maraakiibta ganacsiga ee waaweyn ayaa waxaa rasaas ku furay maraakiib Mareykanku leeyihiin Iiraanna markii hore waxay joogtay maraakiibtayda haddii la qabto ama dhibaato loo geysto markab Mareykan leeyahay meeshani ma joogayo maxaa dhacay markabkii Iiraan ay lahayd wuxuu telefoon u dirsaday ciidankoodii ilaalada kacaanka Iiraan doomihii la yaabka lahaa ee dheereynayay ee qoryaha iyo sawaariikhduba ku rakibnaayeen ayaa markiiba u soo dhaqaaqay meeshii xabadda looga soo riday markabkii Iiraan waxaa la arkay maraakiibtii xabadaysay markabkii Iiraan ee Mareykanku lahaa inay dusha jeediyeen meesha waxbaa ka dhacaya nimanka Iiraaniyiinta ah niman aan caadi ahayn umadeenaba maaha nimankan geesinimo waa la dhameeyey nimankan de wixii hore looga sheegay nimanka farisiyiinta niman aan caadi ahayn waaye soo lama dhihin nimankanu de marka Mareykankii oo badda lagu cayrsanayo ayaa hadda warbaahintu ka hadlaysaa haddaba markaan idintu soo sheekadan xiisaha leh waxaa qoraya telefishinka Al Jazeera ayaa qoray goor dhaweyd wuxuu leeyahay wakaaladda wararka ee Iiraan ee la yiraahdo Mahr waxay sheegtay ciidamada Mareykanka inay rasaas ku fureen markab Iiraan ay leedahay haddaba warbixinta way sii socotay waxa leeyahay ciidanka Mareykanka ayaa rasaas ku furay markab ganacsi oo Iiraan ay leedahay rasaasta waxay ku qasabtay markabkii inuu dib u laabto haddaba ciidamada Mareykanka ayaa iyaguna lagu qasbay inay goobta isaga baxaan oo ay ka cararaan kadib markii si degdeg ah ay halkaa u tageen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan wax la yaab laha ka dhacaya meeshaas sheekada meesha ka soo socota wax caadi ma wax la yaab loo marka dooma yar ayaa waxay ceyrsanayaan maraakiibtii fogatax dhimasho ma rabaan dhimasho nacab nimankan waa la yaab haddaba marka warbixinta halkaas ay kaga gudbaynaa adinkuna fakarkiina aragtidiina bal soo dhiibta qodobka kale ee barnaamijka caawa aan idinkugu hayo wuxuu yahay markii sheekadaas uu maqlay ninka la yidhaha Trump waa xanaaqay maraakiibtaadiyaa badda lagu cayrsanaa war miya kii Mareykanka wuxuu leeyahay dukum daakuma ka dhigayaa Iiraan hadday heshiis degdeg u saxiixi weyso wax aan u reebana male Iiraan maxay leedahay macawla annaga faataxa ku kala joogni waxaan rabta soo adeero ay taagay haddaba markaan idin tuso yara warbixintan Trump waxa uu sheegay inay burburin doonaan gabi ahaanba Iiraan haddii aanay Iiraaniyiintu saxiixin heshiis madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo u waramayay telefishinka la yiraahdo Fox News ayaa ku hanjabay in ay burburin doonaan gabi ahaanba Iiraan haddii aanay Iiraaniyiintu saxiixin heshiis adeer soo socday annaga meeshan maxaa ku kala joognaa awalba meeshan walba xoogiisu ku socdaa waxa qaadi karta qaad marka sheekadu marka halkaasay horta maraysaa wararkaas waxay ahaayeen kuwii soo kordhay waxa kaloo soo kordhay maanta waxay noo joogtay intii nala socotay wasiirada arrimaha dibadda Iiraan iyo Pakistan inay wada hadleen arrinta shirka inay yimaadaan Iiraan wajiga labaad iyadoo wafdigii Mareykanka aan hore u sheegnay laba diyaaradood inay halkaa ku tageen
marka maxaa dhacay waxay yiraahdeen ninkii oo wasiirka arrimaha dibadda Iiraan wuxuu yiri markay wada hadlaan madaxda waaweyn ra'iisul wasaaraha Pakistan iyo ha wada hadleen iyo madaxweynaha Iiraan halkaas wixii ka soo baxaan go'aan ku gaarayna marka anigu wasiir arrimaha dibadda ahay wax go'aan oo hadda aan gaari karo waa tagaynaa ima tagaynaa midna kuma dhihi karo marka caawa waxa wada hadlaa la leeyahay ra'iisul wasaarihii Pakistan iyo madaxweynaha Iiraan telefoon ku wada hadleen haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay ra'iisul wasaaraha Pakistan ayaa wuxuu la xiriiray madaxweynaha Iiraan xafiiska ra'iisul wasaaraha Pakistan ninka la yiraahdo Shahbaz Sharif xafiiskiisa ayaa xaqiijiyay in xiriir dhinaca telefoonka uu dhex maray axadda maanta madaxweynaha Iiraan Mas'uud Pezeshkian iyo ra'iisul wasaaraha Pakistan waxayna ka arinsanayeen xaaladaha taagan ee gobolka iyo arrimaha ku saabsan wajiga labaad ee wada hadallada wax kale oo tafaasiila oo inta dhaafsiisan oo hadda soo kordhay ma jiraan way wada hadleen kaliya haddii marka Iiraan hore ka ogolaan lahayd hore laga sheegi lahaa laakiin dabcan meesha wali waxba jira shuruudo iyo Iiraan waxbay ku xiraysaa marka way soo bixi doonaan shuruudahaas iyaguna wixii laga yiraahdo marka kullay Pakistan waxay ku dadaalaysaa in wada hadalka wajiga labaad la isugu yimaado marxalad aad u halis badan la maraya in dagaalkii lagu laabtaa laga baqaya xaalku waa halis meeshii waa xiran tahay dawladihii oo dhan waa go'doonsan yihiin Iiraan kaliya ma ahana wixii qaliijka oo dhan waa go'doonsan yihiin yab ataag waaya qodobka isaguna halkaas kaga gudbaynaa warbixinta kale ee soo korortay waxa kamid ah 12 bisha ilaa 18 bisha oo shalay ahayd diyaarado xamuul ah kuwa ugu waaweyn ee Mareykanka ciidankiisu isticmaalaan ayaa waxay ka kacayeen saldhigyada Mareykanka uu ku leeyahay Jarmalka hub iyo gantaale qaadayeen waxay la aadayeen bariga dhexe arrinka marka waxaa sheegay shirkadaha ka shaqeeya duulimaadyada ogaanshiyaha diyaaradaha ayaa xaqiijiyay laakiin shirkaduhu hal ciladay leeyihiin waxay yiraahdeen Israa'iil ayay ka dejiyeen inta badan hubka meelo kalena waa tageen laakiin meelahaas ma sheegin dawladahan kale oo dariska meelaha oo kamid ah hubka u geystay Mareykanka marka meelahaas waa la qariyay laakiin Israa'iil hubka waa la geeyaa la leeyahay haddaba markaan tusoo wararkii ugu dambeeyay الجزيرة وحلها هاي دولماتيو دينا عركة مريكنكا ايا وحو كسامينيا الشرق الاوسط اما باريغا دحي ايو كسامينيا هدابا وربحين توسي سعوتي وحليا هاي ادى ليرادو فلايت رادار دي هاي ادا كالي oo iyagu ku takhasusay arrimaha la socodka dhaqdhaqaaqa diyaaradaha caalamka ayaa sheegay duulimaadyo dhinaca cirka oo military Mareykanku inay ka soo duulayeen Jarmalka oo ay tagayeen bariga dhexe isbuucii la soo dhaafay ayay arintan xoog u socotay waxaana la sheegay laga soo bilaabo 12 April ilaa 18 waxaana la sheegay 124 diyaaradood oo kuwa waaweyn oo Mareykanku isticmaala inay markaa duulimaadyada sameeyeen 124 duulimaad ay sameeyeen diyaarada maalmo gudahood intii xabad joojintu socotay waa Israa'iil waxa loo geeyay hubkii waa naga dhamaaday ay lahayd iyo wixii loo daldalay gantaalaha isaga celiyaa hadaaba celin kartaan kuwii kalena bariga dhexe iyaguna hubkaas uu geystaa la leeyahay haddaba qaybtan ugu dambaysa barnaamijka waxaynu ku soo qaadanaynaa warar ka soo kordhay masjidka barakaysan ee Al-Aqsa masaajidka ninkii mu'adinka ka ahaa laga soo bilaabo sanadkii 1978 ilaa hadda ayuu mu'adin ahaa oo ka adimayay masaajidka waxaa sidoo kale ninka uu ahaa Ilaahay ha u naxariistee wuxuu sidoo kale ahaa inta salaadaha aan la galin ayuu quraanka akhrin jiray cod aad u macaan oo dadku inta ay salaada sugayaan ayuu masaajidka ka akhrin jiray ninka marka Ilaahay ha u naxariisto uu dhintay la leeyahay haddaba aan idin tuso Al-Jazeera waxay leedahay dadka reer Qudus ee muslimiinta ah waxay aaseen mu'adinkii iyo qaari'ii Masjidul Aqsa ninka la dhihi jiray Sheikh Naji Al-Qazaz ninka la dhaho
haddaba ninkan ilaahay ha u naxariistee wuxuu ku dhintay da'da 66 sano jir ayuu ku dhintay wuxuuna bilaabay inuu ka adimo masaajidka barakaysan ee al-aqsa 1978 waaye warbixintaas ayaa ugu dambeysay barnaamijkeena caawa fakarkiina iyo aragtidiina bal wixii ay idinla tahay soo qora inta aan mar kale barnaamij kale ku kulmayno mar walba ku xirnaada barnaamijyadeena xaqiiqada ku salaysan innagoo mar walba idinla wadaagna macluumaadka iyo wararka aan soo gudbinayno meeshii ay ka yimaadeen oo aan idinla wadaagayno like garay oo share garay barnaamijka haddaad cusub tahayna subscribe-ka ka iloomin youtube-ka facebook-gana follow garay nabadgelyo